soo dhawaada daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta iyo caalamka. Cabdiqaadir Khosnoff, difaaca dhexe ee kooxda Manchester City iyo xulka qaranka Uzbekistan, ayaa dhawaan lagu soo dhaweeyay Tashkent isagoo loogu deeqay gaari nooca raaxada ah ee Mercedes. Khosnoff oo horey ugu isticmaalay gudaha Ingiriiska gaari BMW ayaa hadda ku biiray xerada tababarka xulka qaranka si uu uga qayb qaato kulamada soo socda. Khosnoff oo ku dhashay Tashkent 29 Febraayo 2004 ayaa bishii Janaayo 2025 ku biiray Manchester City isagoo saxiixay heshiis soconaya ilaa June 2029. Intii uu joogay kooxda waxa uu soo bandhigay qaab ciyaareed cajiib ah taasoo keentay in loo xusho xulka qaranka Uzbekistan. In Khosnoff lagu soo dhaweeyay hadiyad sidan u qiimo badan waxay muujinaysaa sida ay uga go'an tahay Uzbekistan inay u qiimeyso ciyaartooydeeda heerka caalami ah. Tani waxay sidoo kale dhiirigelin u noqon kartaa ciyaartooyda kale ee da'da yar ee rajeynaya inay ku biiraan kooxaha waaweyn ee Yurub. Tababarka xulka qaranka ayaa la filayaa inuu si rasmi ah u bilowdo maanta, iyadoo Khosnoff uu ka mid noqon doono ciyaartooyda diyaarka u ah inay matalaan Uzbekistan kulamada soo socda. Taageerayaasha ayaa rajeynaya in Khosnoff uu soo bandhigi doono qaab ciyaareed heer sare ah isagoo ka faa'iideysanaya khibradiisa Premier League. Dhanka kale, difaaca Chelsea Wesley Fofana oo la kulmay cunsurinimo xun kadib guuldaradii Arsenal, iyadoo Blues ay ballan qaaday inay tallaabo sharci ah ka qaadi doonto. Chelsea ayaa ballan qaaday inay tallaabo ka qaadi doonto cunsurnimada loo geystay difaacooda Wesley Fofana kadib guuldaradii ay kala kulmeen Arsenal horyaalka Premier League. Fofana ayaa baraha bulshada soo dhigay sawirro muujinaya fariimaha cunsuriga ah ee loo diray kadib markii Chelsea Axaddii 1-0 looga adkaaday. Chelsea ayaa si degdeg ah uga falcelisay arrintan, waxayna sheegtay inay la shaqayn doonto shirkadaha baraha bulshada si loo aqoonsado dadka ku lug leh falalkan foosha xun. Kooxda kubadda cagta Chelsea waxay aad ugu naxday uguna carootay kororka cunsuriyadda online-ka ah ee loo geysanayo ciyaartooydeena ayaa lagu yiri bayaan ay soo saartay kooxda. Xadgudubka loo geystay Wesley Fofana kadib kulankii shalay waa wax laga xumaado oo lama aqbali karo. Fofana iyo dhammaan ciyaartooydeena waxay haystaan taageerayaasheena buuxda. Waxaan la shaqayn doonaa hay'adaha ay qusayso si aan u aqoonsano kuwa ka dambeeya falalkan. Waxaan qaadi doonaa tallaabo adag oo suuragal ah.